calankii Jabuuti ilaahu waddankaygii koowaad waddankaygii labaad hadda waddankaygii labaad injine usarakaca calankan haradiya haydar umudane iragar ku qariyo habkay sama dutahayo idigdig la horsho adan lagu hadeye maha haybad kugu yaal maha haybad kugu yaal Jabuuti walaalaheena reer Jabuuti iyo madaxweynahoodaba ummadda Soomaaliyeed waxay ku leeyihiin abaal 91 ilaa saakay oo aan joogno haddii alla ku roon yahay sidii Soomaaliyu ay dhinac isugu raaci lahayd oo u heshiin lahayd oo nabad u noqon lahayd ayay u taagnaayeen oo ay ka shaqaynayeen marka halkii meel ee Soomaalidu ay ku hiranaysi oo ay ku cararaysi oo ay ku badbaadaysi oo dib u heshiisiinteeda iyo wanaageeda iyo islaaxeeda ka shaqaynaysi haddii alla ku roon yahay in qalalaas naga galo ma rabno marka shacabka Jabuuti iyo madaxdoodaba waxaan ka codsanaynaa Jabuuti waa gogosha Soomaaliyeed waa meesha qof kasta oo Soomaaliyu oo maanta ku hiranayo marka inaan la ka carqaladay ayaan ka codsanaynaa haddii alla ku roon yahay cid kasta oo dibad ka soo faragelido haddii alla ku roon yahay in wax ka dhacan jecel waa uga digaynaa sababtoo ah Jabuuti wixii ka halaabaa Soomaaliya ka halaabay marka waa waajib saaran Soomaaliyu inay wada difaacdo dadka reer Jabuutina waxaan ka codsanaynaa waana waxa ugu filan wixii Soomaaliya ka dhacay ilaa 91 dhibaatadii ka dhacday oo iyagu naga maslaxaynayeen oo ay noo goglaayeen oo ay naga heshiisiinayeen oo tamaanta taalo ay ugu dambayso ayaa waana ugu filan marka waxaan leenahay haddii alla ku roon yahay hoygaas aan ku hiran yaan carqalad u gali sidaasaan leenahay qaran dumay dhibaatadiisa anaga soo arag qaran dumay qalfooftiis intaan hoos qadoodna qayrkeena dhaafay qalad laguma saxo qalad dadkana kii qab weyniyo uma qabaha quursada isma qaadi kara marka qaran dumay 30 sanaan hoos taagnay waana soo aragnay dhibaatadiisa walaalaheena Allahumma najiraan lana ilaahay uma kaso haddii alla ku roon yahay raalena ka noqon mayno marka waxa la yiri caaqilkii garaadli iyo cartar ruuxi jooga cisiga reer Jabuuti iyo Ismaaciil yaqaane waa cashiiradeena alla cadawga ha u jibin markaad ciirsan tahay oo tala ka cadiban tahay markaad ciirsan tahay oo tala ka cadiban tahay walaal caymadaadiyo xuduudaada jacayl baa ka qaada ciide waa cashiiradeena alla cadawga ha u jibin imaaraadka carabtiyo colka faweekiyo cayayaan qarsooniyo bela ku xubtamayso raba inay cadhowde waa cashiiradeena alla cadawga ha u jibin marka walaalahan reer Jabuuti ilaahay cadow uma jabiyo haddii alla ku roon yahay cid kasta oo dhibku wadana waxaan uga digaynaa inay ka joojiyaan haddii alla ku roon yahay Jabuuti waa hoyga ummadda Soomaaliyeed waa hoyga qof kasta oo Soomaaliya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelana waa oday Soomaaliyeed
marka walaalahan reer Jabuuti iyo madaxdoodaba waxaan codsanaynaa haddii alla ku roon yahay deganaanshaha Jabuuti waa deganaanshaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika intaba marka guul ayaan u rajaynaynaa nabad ayaan u rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo u rajaynaynaa abwaana badana iga dambeeyo goobta fadhiya intaasaan ku soo gabagabeynaya jeenka gabay haddaan soo gale hadalkiyo jiidan jawaab iyo su'aal kala baxshe jalaqa soo yeersha ambaan jilibka laabay murtida jeenya dhigataa heer Jabuutiyaan rabay dhambaal inan u jeedshahay walaalka haddaad jaar la tahay jiirna kugu yaalo annaad jeceshaha nabadgelyada lagu jaheeyaa jaliilkay wuxuu ku qoraa lagu jarmaad jaliilkay wuxuu ku qoraa lagu jarmaadaah iidoo leesla jiro jagada waa lagu heshiiyaa juqays maamul wow daran yahay iyo laba isjooreysa juqays maamul wow daran yahay iyo laba isjooreysa ijiid aan ku jiide horaa loogu soo jabay heer Jabuuti waa jecelnahay yaan la kala jeedin shacabkana jafaal qodax la iyo jaamka ka ilaalsha jilbiska ya abeesada dhulka waxad ku joogsaysa adigoo u jeeda wadada lagu jarmaadaa jaliilkay wuxuu ku qoraa lagu jarmaadaa jaliilkay wuxuu ku qoraa lagu jarmaadaa hejisa iyo abaal lagama tago waana jirayaan jawaabihi la qoray waa inaan dib u jaleecnaa jaangooyada dhaqaalaha waqtiga jaanis lagu faana jacayl iyo dalxiis iyo midnimo weliba joogtaa iyo jid dheeraa la soo maray dadkana jaahil wada maahan jid dheeraa la soo maray dadkana jaahil wada maahan jaliilkay wuxuu ku qoraa lagu jarmaadaa jaliilkay wuxuu ku qoraa lagu jarmaadaa haddii jagada lagu loolamee laabtu kala jeedo amba qolo jiirnacdee lagu jihaadayo jawigana colaad yahay dadkana jooga laga waayo jidka iyo jasuurka iyo hantida waa jijibiyaane iska jira wixii jira jooga wiligooda heer Jabuuti waa jecelnahay jaaha nabadeed iyo jiljileec u muujiya dadkana yaan la kala jiidan jaliilkay wuxuu ku qoraa lagu jarmaadaa heer Jabuutiyow saddex walxaato jiinku taal idinka ka jooga heer Jabuutiyow ku taalna ka jooga heer Jabuutiyow jiirnacdiin inaad jaagisku jiirnacdiin ka jooga heer Jabuutiyow nacdiin ka jooga reer Jabuutiyow midda kale jiidka jimandaaliska liiskana ka jooga heer Jabuutiyow ka jooga heer Jabuutiyow midda kale jidkan ma taagyo jinaade ka jooga heer Jabuutiyow jinaade ka jooga heer Jabuutiyow midda kale wixii isku jeestaa waa jaaban waan idina haljikatiin horta idina haljikatiin wasaas idina haljikatiin bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan goobjoogayaasha iyo intii daawo doontaba barnaamijkan waxa la yiri hadal ahaan badan ma buuxiyo marka faahfaahin dheer ma galayo walaalaha reer Jabuuti waxaan u soo jeedinayaa baraambur aan uga baaqayo kaasoo run ahaantii ku cabiran ama qeexi doona dhibaatada inaysan wanaagsaneyn isla markaana annaga ay dhulka nala gashay marka si tii nagu dhacday inaynan ku dhicin ayaynu ka waaninaynaa halka rag baa wada jooga maanta gabdhihi anaa ka metelaya marka waxaan rajaynayaa baraamburkaasi in ay ku qanci doonaan isla markaana
run ahaantii waxaan uga go'leenahay meesha isugu keenay iyadoo aan ognahay caalamka inaan kulamo la sameey karin oo cudurro iyo waxyaabo cilan ay jiraan ilaahay hanugu shartiro marka baraamburkan soo jeedina wuxuu ku bilaabanayaa sida tan jabaladiga hayo chuqbaha beer laga fashaa وجهليga baa laga tagaa cilmi baa la jeerin jabka yaa coolaadahana waa la jeexmaraa jamhuuriyadda reer jabuuti taanu jeedin baaq jahawareeriyo dagaalan jid saxa lahayn jufa ku duhushayo xisbi kala jarjaran mucaaradan joogsano jaagayo xilraaba hadduu jaagada helanaha shacabkii jarjara ku jeesjeesahayo jiidadkooda xira annaga ku jiisahawnayo jiifna waahaya badan annaga ku jiisahawnayo jiifna waaya badan jabka oo kale jabuuti halle iska jiro jarib yaa dhibaato jactaad annagoo jajaban jirada maasuq maaha suqanaha jeebka noogu shuban oo jirada maasuq maaha suqanaha jeebka noogu shuban jahola annaga dhexna hal jeerin iyo qodxe jabka oo kale jabuuti halle iska jiro hadduu weebiso jabiyo qarixii jawdhaha abaaru haddee jirto hon reer ku jalaw gurayn adaa ii jihirnaxdo jeenan soo dirtaaye oo sidaad igu dihirnaxdahan kugu diirnixiye shacabka reer jabuutiyo waydin jecelnahe oo jabkiina baandihidanohon jiifka uga kacnaaye waanaaban soo jeedinahaye maqloo la jira jafka cadowbehaydin joogo jabkiina jecel waxayna jeelad ugu jiraan jaanta inaad rogtaan markaad isku jeesataan bayna faraxutee joojiya khalaalaha soho xalka yaradajiya oo jannaad ku jirtiina jiilaalka jannaad ku jirtaane jiilaalka ha u bixina war ka damayo la dhihi karaa waxa weeye boos buuxin maahe waxaray ma jiraan anigu reer jabuuti waxaan ku dhihi lahaa walaalayaal annaga cudur baa nagu dhacay cudurkii nagu dhacana waxaad isku daydeen inaad daaweysaan idinkoo daawadii ku maqan idinka dhexdiina ayay ka dilaaceen cudurkii annaga nahay oo labada dhinacba cudurkiyuu ku wada dhicin waad noo caafimaad qabtaane caafimaadkiina noo ahaada waa noo wanaagsantihiin oo wanaaggiina noo ahaada sharaf baa noo lihiidina sharafkiina noo ahaada waxaad warka ku joojisaan eray hore aad noo tiraahdeen iyo erayaan annagu niriba eray fanaaniintiinu tiriba wuxuu ka mid ahaa walaalaha Soomaaliyeedow haddaad midoobi weydaan wadaan nagu furan bannaan waraabaan halis u nahay reer Jabuuti baa yidhi reer Soomaali weyna waxay yiraahdeen calool nibiraad ka soo celisay Ismaaciil Cumar Geelle caan noqo ducadaas iyo qorshaha iyo wanaagga ay soo jeediyeen fanaaniintu iyo Ismaaciil Cumar Geelle caan noqo yaan meel cid looga tagin walaalayaal mucaarad iyo mu'ayyid walaalaha yaatihiin sharaf iyo karaamad laga mudan tihiin qaymo iyo xigmad baa noogu dhisantihiin labaduba reer Jabuuti baa tihiin laakiin waxaan doonaynaa isbedel hadii yimaado wanaagga ha la isku bedelo hadii aan maaragtay sideena hadda jannaad ku jirtaane jilaalka ha u bixina ay in lagu adkaysto ayaa fiican walaalayaal waxaan idin soo jeedinaynaa walaalnimada karaamada iyo sharafta iyo midnimada iyo qadarinta wax dhaama male walaalayaal jidkaan u maray ha marina walaal daawadaadna siinaysaan expire ha ka dhigina hadda dib ha u celinina walaalayaal aad baan idin salaamaynaa nabadgelyo iyo naxariistana korkiina Allah yeelo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh murti hodana suugaan hidda hadalla miisaaman inkastoo ilaah iga harqiyay hibana ii siiyay gabay uma hollado xaaladan hubiya mooyaane maantana halbaa igu dhalshay ma hadayaameene hudhudkiya ayaamahan siduu haadku werinayo dadka reer Jabuuti hog baad ku hanta teesheene
hadqar weeye meeshaad baryahan ku hinqanaysaane hardan iyo hanjuub iyo hadduu heef wax qabanayo ama hagar walaal iyo nacayb horumar keenayo ama hagar walaal iyo nacayb horumar keenayso annagaa ka soo hoyn lahayn halasaheenni idinkuna halbowlaatihiin aan ku hiranaaye amaalkan idiin hayna baan cidi hilmaamayne isma hor iyo ehel baynu nahay had iyo goor noole isirkana hal baan wada galnaa haybta guudnimo ee hilba noogu kiin yeel ayaan la hinganaynaaye heshiiskiinna waa jecelnihiya inaad hagaagtaane waxba yaan lahaa taadhuglayn hoosna loo noqone waxba yaan haraatida cid kale heeca loo noqone waxba yaan kursiga amad heshaa loo hamuun qabine waxba yaan ismaaciil hadhaco loo hambooriyeyne hal mucaarad waa inaad bulshada dan u horseedaaye cidla laguma hawshoodo iyo hebel un raacdeeye inay taladu kaa hoos baxdaa waa hagaasnimo huuhaada beenta ana waa lagu hungoba idinkoo hawada loolaya oo heegadaa maraya idinkoo dayaxa haabtay oo samada heehaabay idinkoo hormuuda oo halqigu idinku raad joogo idinkoo midnimo halabsadoo wadar ku haanayday hollashiyo horowsii kac iyo hadafsan mooyaane idinkuma habboonayn inaad hoos u murantaane hagardaamo baas iyo khilaaf laysku wada haysto annagaa habheeba u galniyo hog iyo booraane halkay bahashu nala gaadhay iyo hoosu noqodkeennii ku hanuuna waa wixiina dhigay meesha halistaa afartaa hojiyey ee haddaan hor iskala eego dawladnimo hufnaanteeda iyo sii hirgelinteeda kol haddaan hunguri taabic iyo haadka laga soomin hambalaalaqsani kama baxdiya inay hallowdaaye mar hadday huluulaha gashana hoostay taladii humbaaleeyayaashiiyo dulligu kaama harayaane wixii loo halgamay oo in badan dhidiidka loo horshay haddii horarka loo baylaashiya haramcad jaajuusa hohay iyo hahay badata iyo waahuq iyo ciile inaad kala huleeshaanna waan ka hifanaynaaye midnimiyo kol unbaad hantiday haybad qarameed sharaf la huwanaadana allah kaaga dhigay hoy dadna wuu horraysaa haddaan laysakranahayne humaag laguma guuro iyo lar iyo hoohad iyo ciife halka hogasha loo filahayee lagu hayaamayo iska hubiya yaan dawladnima haar cidlaa marine waxaan leeyahay anigana walaalahayn jabuutiyow shacab iyo dawlad baa xilligaa ku xisaabtaamo adduunyada dib u soo xumaatay cadowgiinna inuu badan yahay xilligaa ku xisaabtaamo xiisaadaa deeji iyo xalgaar xanaagii carabtoo xumay kacdoonkii carabta mahow dadka dhiga waa ogtihiin xanaagii carabtoo xumay xeebtaynayow naga xujay ilaahay baa mahad leh intan oo abwaaniin ah oo saxaafad ah isugu keenay inay u hiiliyaan reer Jabuuti murtidii iyo hadalkii macnaha badan lahaaba waa iga horeeyay waxa la yiri oday warkiisu waa duco iyo dardaaran waxaan rabaa kaliya inaan iraahdo laba eray oo ah reer Jabuuti dawlad iyo mucaarad iyo shacbi arrintu waxay u taallaa reer Jabuuti waxaan leenahay odaga Ismaaciil ah oo meesha madaxweynaha ka ah iyo nimanka mucaaradka ah labaduba inay miyirka badaan oo xaalka dejiyaan oo walaalnimada iyo nabadda iyo dawladnimada la tixgeliyo iyo shacabka reer Jabuuti qalalaase iyo dhibaato waxba sooba kordhiyaan dagaal iyo taayir la gubo waxa ka wanaagsan miiska wada hadalka in la isugu yimaado wixii dan ah in laga wada hadlo
in lagu heshiiyo qarankaasu siduu ku dhisnaan lahaa intaasaan idin leeyahay nabad iyo caaniya barwaaqiya bashab baan idinku ducaynayaa ilaahay idankii khayr badan baan idinku ducaynayaa nabad baan idinku ducaynayaa heshiis baan idinku ducaynayaa sidii aad ahaydeen ka sii wada reer Jabuutow guulaysta bismillaah hadalkii xigmadiisii iyo tiradiisiiba waa la yiri kelmad yar oo taariikh ah waan ku darayaa oo maanta wacyi noqon karta waqti wadankeena xaaladiisu qayr caadi ahayd baa waxaan ku baraarugay habeen 26 Juun baan saacadayda ka arkay waa bilaa xurriyadda Juun iyo Julaay anaga ee Jabuutiba waxay ugu noqotay marti goor xun socoto aan filanaynin nin Soomaaliyeed oo Juun iyo Julaay soo martiyeen oon karti u haynin ama dawlad u haynin culayskeeda waa la qiyaasi karaa iskaacdeeda markaan ka fakaray waxaan helay Jabuuti oo dawlad ah waa ku ergaday sababtaan ugu erganayay ayaa macna leh waxba la iga qori meyn aniga Soomaaliyu Jabuuti dhulka Soomaaliya waa ka weyn yahay dadku waa ka badan yahay laakiin sababtaan ugu erganayay ayaa macna leh waana mid dad maanta oo dhan laga hadlayay 6 saac habeenimo ahayd Ramadaan bay ahayd waan la hadlay bilihii iyaga waxay tiri Juun iyo Julaay waqtigu gelinba waa jaad maalmo soo jireenaad tihiin oo jacayl mudan joogistiina caawana qalbigu way jiranaya jilaalka dheer iyo intaan omosta jiiraayo intaan halaqa jabadkayga galay jaanta marinayo jawaab iyo su'aal yaan midnaba la iga soo jirin Jabuuti walaalkan jeclaa ila sii jira wali kama aanan doonin ma qaan cid kale ka soo qaado sababtan waxa ugu erganayay dawladnimada ahayd meesha haday ka baxdo waxba kuma ergadeen waan hubaa aniga Axmed Dheera la yiraahaa aqli iga batay ku wacdin maayo saaka Jabuuti dawlad iyo shacabba laakiin ma caraysni mulki la isku ficilo annaga nagu fahma mulki la isku ficilo cidii u baahan natiijadiisu Soomaaliya hadda wato aad baad u maad bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan duco iyo bogaadin iyo ammaan iyo farxad aan la soo koobi karin u diraynaa haddaan nahay golaha abwaanada Soomaaliyeed shacabka Jabuuti ee ku guuleystay rabshadihii gaagaabnaa ama yaryaraa ee ka kacay magaalada Jabuuti inay u damiyaan si hawl yar sidoo kale waxaan ammaan aan la soo koobi karin u jeedinaynaa odayaasha reer Jabuuti iyo dhammaan mas'uuliyiinta oo ugu sareeyo madaxweynaha Jabuuti waxaan ku faraxsanahay in ay maanta taagan tahay maalin aan la hadli karno reer Jabuuti oo xayraankii iyo muxuu ahaa isu soo bixi iyo dhibkii dhulka la isla dhigay walaalayaalow shacabka Soomaaliyeed hal tiir bay leeyihiin oo cuskadaan tiirkaasina waa Jabuuti 91 shirkii Cali Mahdi lagu soo dooranayaan cuskanay waxaan orsanay 2000 midkii Cabdiqaasin lagu soo dooranayay waxaan cuskanay intaasoo ka dambaysa maanta ayaan fadhinaa haddana Jabuuti waxaan idinka codsanaynaa baaqeenna waxa abwaanadu ku gudbiyeen tiraabna waa lagu gudbiyey waxaan san rabaa inaan nuxurka waxa uu yahay oo kaliya aan iraahdo ha ku gubanina wixii aan ku gubannay ha ku jabinina jidkaan ku jabnay ha ku kufinina meesha aan ku kufnay ha ku dhicinina godkii aan ku dhacnay hana baylihinina waxaa tihiin garabkeenniyo waxaa tihiin tiirka kaliya aan cuskanno magaalada kaliya ee Soomaaliya leedahay ee nabdoon 30 sano ugu dambeeyay waxay ahayd magaalada Jabuuti magaalada Jabuuti ayaan ku xisaabtamaynay oo nin kasta oo Soomaaliya meel kasta uu degan yahay ku xisaabtama inay tahay magaalo Soomaaliyeed oo degan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaan ku xisaabtanaa
inuu yahay madaxweynaha Soomaaliyeed guud ahaan ee maanta u muuqda madaxweyne waxtara ma rabno inuu samir xumaado madaxweyne Ismaaciil ma rabno inuu fahmi waayo fariimaha dadkiisa u dirayaan ma rabno inuu muxuu ahaa xaraaradda iyo kulaylka iyo waxa dadka ka yimid ay isagana ka tambataan waxaan idinka codsanaynaa waxaan idin la hadlaynaa mucaarad iyo muxaafid intaba walaalaheen baa tihiin waxaan idin leenahay xaalka dejiya arrimihiinana dhaqan ku dhammaysta Jabuuti waxay leedahay dhaqan adag oo soo jireena oo la yaqaano iyo geed la fariisto waxaan rajaynaynaa inaanan maanta intii ka dambayda maqli doonin Jabuuti qalalaasa ka dhacay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa ammaan aan la soo koobi karin inaan u jeediyo saxaafadda Soomaaliyeed oo mar walba u taagan inay gacan naga siiso arrimahaas mar walba qayb ka qaadata golaha abwaanada Soomaaliyeed wacyigelinta iyo baraarujinta iyo baaqyada uu u gudbinayo shacabka Soomaaliyeed in shuruud la'aan ay iyaguna gudbiyaan dhammaantiin waxaan idin leenahay saxaafadda Soomaaliyeed guulaysta dadka Soomaaliyeed waxaa tihiin hiilka koowaad ee u heeliya hiilka koowaad ee ka dhashay dadka Soomaaliyeed una heeliyaa waa saxaafadda Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin ma aqaano waxa idinku tilmaanto Jabuuti ha guulaysato Jabuuti ha midowdo Jabuuti ha israacdo waa mid ha heshiiso khilaafka Allah ka saaro keenniyo kale alla ma geliyo waxaanan hilmaamaynin ilaa sinjiga ma mayrmo ilaa sumadaa ma guurto afkaadu ilaa ma suulo sokeeye ilaa ma daalo waa sokeeyihii naga daali diiday waa kuwii hiil walaal waxaan leenahay ilaahay fidnada iyo qalalaasaha ha ka dhex bixiyo ilaahay kuwa faragelinta iyo dhibaatada ku wada ha ka qabto tiirkan cuska ayaa yaatee